bismillaahi raxmaani raxiim madaxda golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed maanta oo sabti waxa ay sii wadeen kulamadii ay kala hayeen arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka shirka maanta uu sida caadiga ah shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland Galmudug madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna magaalada Muqdisho dhammaan madaxdu waxa ay si qoto dheer ay uga hadlayeen oo ay sii wadeen inay ka munaaqashadaan ajendayaashii hor yaalay ee ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka amniga hadda shirku waxa uu marayaa meel gabagaba ah madaxduna waxa ay isfaham buuxa intooda badnaa ay ka gaareen qodobadii ay ka wada hadlayeen ajendaha ugu jiray shirka waxaa la filayaa haddii ay baydmo in maalmaha fooda inagu soo hayo uu soo gabagaboobo iyadoo ay ka soo bixi doonaan natiijo wax ku oola waxaana sida muuqata madaxdu marka aad fiiriso sida ay arrimaha saraxada leh ay uga doodayaan la filayaa in shirkan natiijadiisu ay noqoto mid horseeda doorasho hufan oo dalka ka dhacda isla markaana ay waqti kooban oo la waqtiyeeyay